بسم الله الرحمن الرحيم. horta shalayto jabad waxay qaadatay go-aan xagga joojina waxaa jira wadahadalo muddo noo socday iyo baaq hore oo jabhadaha gobolnimadoonka iyo kuwa dagaalamaya iyo xisbiyada mucaaradka kuwa hubaysan kuwaan hubaysnayn ay dawladda ugu baaqday inay iman karaan oo lawada hadli karo. iyadoo taasi jirtay yaan marxaladan u aragnay in xagga joojin la sameeyo mar ahaanta aan wafdi u diro Addis Ababa iyo dalka yagiiba waqtigaas oo dalka usii gudbaya dawladda Ethiopiana sarkayaan shacbiganagina la kulmayo oo dhammaan gobolada iyo degmooyinka inaanu soo booqano oo dadweynahanagii oo muddo kala xidhnayn is aragno wada hadallo oo isa salaano iswariidino kadibna aan umuurahanaga si wada uga tashno sidaasuu waqtigan ku yimid. waayahay marka maxay tahay ujeedada rasmiga ah ee aada u tagteen marka laga soo tago arrimahaas aada sheegtay? waxay tahay inaan horta hore jawiga qallafsan dagaalka qowmiyaadka ee Soomaaliya iyo Oromada udhexeeya inuu qabuubo, inaan xaaladda qaxa iyo cabsida ku jirta shacabkanaga aan ka nayno oon dejino, in wadahadallo hordhaca oo wadahadalada weyn ee jabhadda iyo dawladda Ethiopia dhex mari doona hordhaca aan samayno, inaan xaadno shirweyne qaran oo ummadda Soomaaliyeed ay qabsanayso. umuuraha inuu waqtigan sii qabto wadahadaladii iyo guddiga wadahadalada iyo dhexdhexaadiyihii ku dhex jiray iyo xaaladahaasi si odama socdaan balamaa laleeyahay taasay ku xidhan tahay. laakiin inaan kalsoonina abuurno dadkanagana dejino siina booqanana hordhaca aan noqono shirweynaha qaran aan damacsannahay iyo mideynta dadkanaga isu keenidooda tafaraarq iyadoon dareenay arrimahaas yaa keenay waqtigii in hore loo soo diro. waayahay marka wadahadaladaas aad sheegtay dhex mari doona idinka iyo dawladda goorma ayay bilaaban doonaan? ama isbuucan ama isbuuca ku xiga dhinacyo saaxiibo labada dhinac baa ku jira inaan waxayna saxaafada la wadaagin inaan sii bujiyo ama aan daboolka ka qaado laakiin waxaan qiyaastaya inay dhowdahay waana jeclahay anaguna wadahadallo kooban oo isfaham kooban ama hordhaca oo aan ku dejino muxuu ahay dalkayagii aan dadkayagii ugu gudubno oo aan ku midayno intay kuwaasi socdaan inaan xaaladdu wadooyin kala marin baan usoo horumaray. caddaani tan iyo 1994 ONLF dagaal ayay waday dhiig badan ayaa daatay dagaaladaas oo aada ugu soo horjeedeen dawladda Ethiopia kuna raadinayseen madax banaani ee Soomaalida. marka maxaa natiijo ah oo idinkaga soo baxay dagaalkaas? mowqifkiiniina maxaa iska bedelay? dagaalka qadiyadana si fiican buu u diiriyey dad badan iyo naf badan baa nagaga baxay iyo hanti badan. ha yeeshee qadiyadda iyada miisku keenay ismoogeysiintii dawladda Ethiopia xaaladaasi way ka gudubtay, shacabkeeduna qadiyad buu yeeshay. haddana arrimaha wadahadalka inaan xal laga gaadho miiska saaran bay ka mid tahay. dadka Soomaaliyeed in xoog lagu qabsado ay qabaan. marka ilaa 94 kaliya maaha 48 markay Ethiopia wadaageen dib usoo gashay laga bilaabo xaaladani way taagneed. marka waxay u baahan tahay in run laga sheego. dadka Soomaaliyeed xoog bay dareensan yihiin in lagu haysto, qori laguma hayn karo. si dhab ah waa inay dawladda Ethiopia wala hadasho oo aayahooda iyagu u go'aamiyaan oo isku qaataan inay xor yihiin ee aan qori lagu haynin. waaya ugu dambeyntii isbedello baa ka dhacay dhulka Soomaalida ee degtay Ethiopia gaar ahaan magaalada Jigjiga. sideed u aragtaan isbedelkaas? isbedeladan waa waxaan u aragnaa wax kasta oo maamul ah oo dadka Soomaaliyeed dhisanayo inay iyagu samaystaan, inay guryahooda ku samaystaan, inay isu tanaasuli karaan, inay isdhageysan karaan, inay is ixtiraamayaan, inay maslaxadooda hagi karaan. waxoogaa buuqa dhacay iyo arrimaha ay sahleen way jirtaa. laakiin annagu jeclaan waxaan qabnaa dadka Soomaaliyeed wax ismaamul iyo maamul ka weyn baa ka maqan. ismaamulka in intii lagu mashquuliyo wixii ugu weynaa laga dhigo deedna aada loogu mashquulo kolba meel loola caro intii salad lagu rito kolba meel la geeyo waa hankooda hoos loo dhigayaa. kursigu waa wax yar oo 40 sentimitir buu dhan yahay balliciisuba. shacbiga iyo haayihiisa iyo ay ka talinta iyo xuquuqda federaalka ku leeyihiin, xaqa ay ku leeyihiin khayraadkooda, xaqa ay u leeyihiin inay midoobaan oo ay muuqdaan oo ay nabad helaan oo ay hawada ka talin karaan oo taa inay u muuqato
iyo midnimada iyo muxuu ahaay Ethiopia qowmiyado weeye qowmiyada Soomaalida inay noqonin ugu hooseysa qowmiyadaha kale Ethiopia xagga duruufta siyaasiga iyo duruufta dhaqaale iyo duruufta nabadgelyo iyo muxuu ahaay ka qayb qaadashada iyo go'aaminta aayahooda ama inay inay aayahooda gacanta ku hayaan qowmiyada waxaan dareemaynaa Ethiopia ka jiro kale oo fara badan oo arrintooda gacanta ku haysta ama ku qanacsanaa Ethiopia in la joogaan ama ka baxaan dadka Soomaalida taan ugu baaqaynaa waxa weeye shirweyne qaran baan qabanaynaa hordhiciisi baan u soconaa dadka nayanaan midaynaan rabnaa umuurta mas'alooyinka yararka ee la weyneynayo wax ka weyn baa dadka Soomaalida yeela inaan ka hayo soo dhicinana waan doonaynaa wada jir iyo midnimo iyo la rabaa